السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن دغستيال داوديال كسو دوادا برنامج عصب وان idinku talagalnay inaad ka daawataan page-keena isbitaalka Somali Syria Hospital. cinwaanka barnaamijkeena wuxuu noqonayaa weydii dhakhtarka. barnaamijkaas oo noqon doona barnaamij toddobaadle ah oo aad wiigiiba mar ka daawan doontaan page-keena isbitaalka Somali Syria Hospital. waxaan barnaamijka maanta marti inooga ah Dr. Cabdilkariin Axmed Maxamuud oo kamid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed isla markaana ka howlgala isbitaalka Somali Syria Hospital iyo isbitaalo kale ku yaala magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa dhiigkarka ku dhaca haweeneyda uur kale. ugu horeyn Dr. Cabdilkariin kusoo dhawow barnaamijka weydii dhakhtarka. waan dhawahay waad mahadsantahay cali. Dr. soo dhawow waa maxay dhiigkarka ku dhaca haweeneyda uur kale? dhiigkarku waxa weeyaan xanuun ku dhaca xididada isla markaana maxaan ku raahdaa qofka markii la cabiro dhiiggiisa uu ziyaadayo cadaadiska marka uu ziyaadayo waxa uu leeyahay laba qayb waxa la yiraahdaa systolic oo Soomaalidu ay u yaqaanaan dhiigga qaybta kore, qaybna waxa la yiraahdaa diastolic oo Soomaalidu ay u yaqaanaan qaybta hoose. dhiigu qayb sare iyo qayb hoose ma laha, laakiin maxaan ku raahdaa waxa uu leeyahay systolic iyo diastolic. systoligaasi marka uu ka badnaado 140, diastoliguna uu ka badnaado 90, halbeega lagu cabirayana uu yahay millimeter of mercury, marka ayaa waxa la dhihi karayaa qofkani waxa uu qabaa hypertension ama high blood pressure. macnaha cadaadiskii dhiiggiisii ayaa ziyaaday ayay ka dhigan tahay macna ahaan. Tore su'aasha labaad, imise nooc ayaa loo qaybiyaa dhiigkarka ku dhaca haweeneyda uurka leh? markii aan ka hadalno haweeneyda uurka leh dhiigkarka ku dhaca noocyadiisu way badan yihiin. wuxuu noqon karayaa dhiigkar markaasi ka dhashay uurka, oo dhiigkar ka dhashay uurka markaan dhahayno macnaheeda waxa ay ka dhigan tahay in qofkani cadaadiskii dhiiggiisa markii la cabiro uu ziyaado, isla markaana markii laga baaro kaadi aan laga helin protein. markaas waxaa la dhihi karayaa waxa loo yaqaano gestational hypertension. wuxuu qaadanayaa terminology ama erey bixin noocaas ah. laakiin waxaa dhici karaya qofkii cadaadiskii dhiiggiisa in la baaro oo markaasi la ogaado maxaan ku raahdaa cadaadiskii dhiigga in uu sareeyo oo uu ka sareeyo 140 systoliga, diastoligana uu ka sareeyo waxa loo yaqaano 90. maxaan ku raahdaa markaasi markii laga baaro kaadida waxaa la arki karayaa kaadidii in laga helayo protein. qaabo badan waxaa jiro kaadida loo baaro, laakiin kan ugu komonsan ee hadda isbitaalladeena ay isticmaalaan ama isbitaallada maxaan ku raahdaa dunida ku yaala ay isticmaalaan, macnaha waxba ma xisaabinayo, laakiin waxa uu sheegayaa plus iyo minus. so pluskaasi iyo waxa loo yaqaano maxaan ku raahdaa pluskaasi waxa uu noqon karayaa +1 ama +2 ama +3 sidaas oo kale. waxa loo yaqaanaa noocaasi dipstick. qaabab kale loo cabirana way jiraan oo la yiraahdo 24-hour urine collection, in qofka 24 saacadood kaadi laga aruuriyo oo markaasi la fiiriyo inta protein kaadidaasi ku jirta, meeqa gram oo protein ku jirta sidaas oo kale. Tore su'aasha saddexaad, dhiigkarka ma leeyahay heerar kala duwan ee uu soo maro? dhiigkarku waxa uu leeyahay qayb loo yaqaano mild hypertension, mild ama mild preeclampsia kan dumarka ku dhaca markaynu ka hadlayno. so mild markii la dhahayo macnaheedu waxay ka dhigan tahay 160 ma gaarin systoliga, diastoliguna maxaan ku raahdaa 90, maxaan ku raahdaa
wuu ka badan yahay laakiin ma gaarin 110. markaasoo kale maxaan ku rahdaa waxa uu soo galayaa mild hypertension ama mild preeclampsia. markii laga hadlayo maxaan ku rahdaa nuuca adag ama dhibka badan, macnaheedu waxay ka dhigan tahay pressurkii ama cadaadiskii dhiigga inuu ka sare maro qaybta systoliga 160, qaybta diastoligana inuu ka sare maro 110. markaasi waxaa la dhahayaa waa severe preeclampsia ama waxaa loo yaqaano severe hypertension. su-aasha afraad, waa maxay calaamadaha lagu garto dhiigkarka? dhiigkarka calaamadaha lagu garto way badan yihiin. waxaa ka mid ah qofku in uu ka cabanayo madax xanuun, waxaa ka mid ah qofka araggiisa inuu caad soo galo ama maxaan ku rahdaa waxyaabaha qaar uu labalaba u arko, waxaa ka mid noqon karaya qofku inuu dareemo bug xanuun, waxaa ka mid noqon karaya jirkiisa barar inuu soo galo dadka qaar. markii markaasi la cabirana la ogaado dhiiggii inuu sareeyo, maxaan ku rahdaay markii la ogaadana kaadi haddii laga baaro ama brotiin laga helo ama laga waayo sidaas oo kale. toora su-aasha shanaad, ma dhici kartaa in dhiigkarka laga hortago? dhiigkarka markii laga hadlayo maxaan ku rahdaa sababaha keena iyo maxaan ku rahdaa waxyaabaha saacida iyo saameyn ku yeelanaya ka hortaga. markii laga hortagayo marka dhiigkarka maxaan ku rahdaay waxaa jiro waxyaabo fara badan oo qofka in laga joojiyo ay tahay sida alkohoolka, cusbada faraha badan, maxaan ku rahdaa waxyaabo noocaas oo kale ah. waxaa kaloo jira waxyaabo dadka maxaan ku rahdaa lagu dhiirigeliyo oo markaasi maxaan ku rahdaa la aaminsan yahay in ay ka hortagi karayaan. waxaa ka mid ah calciumka kale, supplementation in la siiyo calcium supplementska waxyaabaha loo yaqaano. waxaa ka mid ah junior aspirinka ama aspirinka nooca dooskiisa uu yaryahay. waxyaabaha noocaas oo kalena qofka haddii la siiyo waxaa dhici karaya maxaan ku rahdaa dad badan inay ku badbaadaan oo maxaan ku rahdaa ay uga badbaadaan inuu ku dhaco waxaa loo yaqaano preeclampsia, gaar ahaan dumarka uurka leh. kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdikariin Axmed Maxamuud oo barnaamijka marti ku ahaa qaybtiisii koowaad. insha Allah taala toddobaadka dambe ayaad qaybta kale la socon doontaan. waxaa barnaamijka halkan idinkaga soo jeedinaya isla markaana soo saare ka ahaa anigoo ah Ustaad Cali Maxamed Jaalle. waxaa dhanka kaamirada naga saacinaya saaxiibkay Anas Mayow. intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.